ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد mar labaad waxaan galaynaa cilmi baaristii ku saabsanayd kalandarka islaamiga ah oo aan filayo in aad loogu baahan yahay awal baan ka soo hadlay casharkan waxaan ku noqonayaa hadda naqtiyan yara ayaan ku noqonayaa waxa weeye waxaan soo joognay in aan helnay 19 sano oo miilaadi ah in ay la mid tahay 19 sano iyo 7 bilood oo hijri ah 19 sano miilaadi ah inay la mid tahay 19 sano iyo 7 bilood oo hijri ah marka intaas muddo dheer bay u qaadatay intaas oo sano waxaan fiirinayay dayaxan fiirinayay marka waxaan ka helay maxsuul ah 19 sano iyo 7 bilood in ay la mid tahay 235 bilood oo hijri ah 235 bilood oo hijri ah waxa la mid ah 19 sano iyo 7 bilood middan 19 sano miilaadiga waxaan ka helnay in ay la mid tahay 6940 maalmood 6940 maalmood inay tahay marka waxaan arkaynaa mar haddii isla eg yihiin 19 sano miilaadi ah iyo 19 sano hijri ah haddii isla eg yihiin labaduba waxay la eg yihiin 6940 maalmood bay labaduba la eg yihiin 6940 maalmood marka waxaan u qaybinaynaa 235 bilood oo hijri ah maxay markaa bishii helaysaa bilaha baatan lagu weeraray bilaha ku dhamaada 29 iyo bilaha ku dhamaada 30 waa tii lagu weeraray oo arrimnay inaan gaarno bisha muslimku inaan si saadaalino bishaas waxay ku dhamaanaysaa inta iyo bisha waxay ku dhamaanaysaa inta waayahay marka 235 bilood haday la mid tahay 6940 subaxood haday la mid tahay bishiiba intee bay helaysaa marka waxa jira xisaab la yiraahdo fududeyn tanna waxaan u qaybeynaa 5 tanna waxaan u qaybeynaa 5 waxay noqonaysaa qayb sahlan oo ah 47 biloodba 47 biloodba oo hijriga ah waxay la mid tahay 1388 subaxood bay la mid tahay ama intaas oo maalmood bay la mid tahay waayahay markii haddana aan sii qaybino oo bilahan aan u qaybino maalmahan aan u qaybino waxaan helaynaa 29 maalmood inay bishii tahay iyo 25 loo qaybshay 47 taa macnaheedu waxa weeye waxay samaysaa bishu hal wareeg yani bil cusub baa dhalata bil cusub ayaa dhalata markii intaas oo maalmood la joogo bil cusub baa dhalata oo cirka laga arkaa waayahay marka midaan laftigeeda waxay u baahan tahay in la sii fasiro u baahan tahay maxaa laga wadaa 25 loo qaybshay 47 maxaa laga wadaa bil kasta waa 29 miya waxa laga wadaa marka 25 bilood baa waxay ku dhamaadaan 30 47 biloodba 47 biloodba 25 baa waxay ku dhamaadaan 30 oo marka waxay noqonaysaa 750 maalmood bay noqonayaan 47 bilood waxa ku soo haray marka ka goyso 25 22 waxay min 29 waxay noqonaysaa 638 marka isku darkooda maxaan ka helaynaa tiradii aan qaybinay 1388 aan qaybinay oo aan u qaybinay 47 bilood aan u qaybinay marka waxa weeye halkan waxaan ka helnaa markaas 47 biloodba 47 bilood oo soo maraba 25 kamid ah waxay ku dhamaadaan 30 47 biloodba 22 kamid ah waxay ku dhamaadaan 29 marka waxay noqonaysaa 47 bilood intaas oo maalmood bay noqonayaan haddana markaan galno midaan sare markaan gaarno waxaan dhihi karnaa 125 bilood baa waxay ku dhamaadaan 30 marka waxay noqonaysaa 3750 110 biloodna waxay ku dhamaadaan 29
3,100 iyo 9 maxay tahay 6,940 kii aan qaybinay oo aan u qaybinay 230 iyo 5 bilood aan u qaybinay waayahay waxaan awal soo sheegnay qorraxdu marna inay samayso dheerayn waxaan soo sheegnay qorrax dhaca qorraxdii rid qorrax dhaca mar wuxuu qorraxdu dhacaysaa 11 saac iyo bar marna waxay dhacaysaa 12 saac marna waxay dhacaysaa 12 iyo 25 bay dhacaysaa waxaan soo sheegnay markaas in marka ay dhacdo 12 iyo 25 markay dhacayso bishii bil dhalan lahayd baa waxay la dhacaysaa qorraxdii sababtu waxa weeye qorraxdii cirka ayay maganaysaa muxuu ahaa ku daahday bishii dhalan lahaydna way sugtay marka waxa weeye bishii iyo qorraxdii ayaa wada dhacaya hal mar bil dhalan lahayd baa markaas aan la helayn markaan oo kalena bil caadi ah dhalata markaan oo kale qorraxdii si caadi u dhacday 12 bay dhacday 12 markii dhacdana waxa dhalanaysa bil caadi ah markaa dhalanaysa markaan qorraxdii waxay dhacday 11 iyo bar waxa dhalanaysa bil meel sare joogta waxa weeye ilaa qorraxdii waxa weeye waa degdegtay marka qorraxdii maxay raad ku yeelatay waxay ku yeelatay qaabkii ay u dhalan lahayd bisha bay waxay ku yeelatay raad ku yeelatay saa darteed marka nambarkii hadda aan soo sheegnay oo ahayd bishu xawaaraheedu inuu yahay 29 25kii 47 biloodba 25 baa 30 ah midaan lama dhihi karo marka waa xawaaraha rasmiga ah waxaa la oran karaa celceliska xawaarayaasha dayaxa weeye celceliska xawaarayaasha dayaxa weeye waxaan arkaynaa qorraxdii muxuu raad ku yeelatay bishii oo habda nooc ay noqonayso oo marna ay u ekaanayso bishii in xawaare ziyaada ay ku jirto marna ay caadi tahay marna maganaysaa gaabis ku jiro baan meeshaan ka aragnay marka midaan maxaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa waa celceliska xawaarayaasha dayax marka waxaa la rabaa in aan gaarno jawaabta ah berri bil ma dhalanaysaa misaalba waxa weeye waa la sooman yahay soonkii waxaa la rabaa berri inay tahay iid iyo in kale yani inaan sii sheegi karno baa la rabaa waayahay taa marka waxaan sameeyey kalandaro 1400 iyo marka waxaan sameeyey kalandaro tiro badan oo 20 kalandara ayaan sameeyey anoo ku sameynaya xawaarihii hadda aan sheegayay anoo ku sameeyey 29 25 la hoos dhigay 47 ayaan ku sameeyey xawaaruhu inuu intaas yahay baan ku sameeyey kalandarahaas waxay ka bilaabanayaan 1425 kii la soo dhaafay oo ahaa 2004 waxaan ku geeyey 2023 waxaan ku geeyey waxaan ka bilaabay 1425 kii baan ka bilaabay oo ahaa inta ku aadanaa waxaan ku geeyey 1444 20 kalandar weeye waxa weeye 20 kalandar marka waxaan sameeyaa marka hadda oo aan ku guda jiraa in aan sameeyo misalba bil baan 30 ku dhamaatay tii kala bilaabantay
labaatan iyo sagaal kow labo soddon kow labo labaatan iyo sagaal kow labo soddon kow labo kuwan waxa weeye bil dhamaatay kuwan waxa weeye bil dhamaatay tanna waxa weeye bil cusub marka kalandarada tan baa waxaan ka rabaa anigu waxaan rabaa halkaa bishu inay ka dhalato meesha kowda baan rabaa bisha inay ka dhalato waxaan sameeyaa marka bishaanu meeshii aan ka rabay bay ka dhalatay calaamayntaasaan wadaa marka kalandarkan baan ku calaamaynayaa bishaan waxaan ka rabay halkaa inay ka dhalato waa ka dhalan weyday halkaasaan calaameeyay marka bishaan waxaan rabaa halkaa inay ka dhalato ka hor bay soo dhalatay bishaan waxaan rabaa inay ka dhalato halkaas sax bay u dhalatay tan waxa weeye halkaasaa la rabay inay ka dhalato sax bay noqotay tan waxa weeye halkaasaa la rabay inay ka dhalato saas calaamayntaasaan wadaa hadda waxaan wadaa waxa weeye waa baaritaankii ugu dambeeyana weeye calaamayntaasaan hadda wadaa waxaan rabaa markii la soo gaaro 29 sano markii dhamaato 20 sano markii dhamaato insha Allah waxaan rajeynayaa inay noqoto meelahaas aan calaameeyay waxay noqon doontaa meelaha biluhu ka dhalan doonaan rasmiga ah meelaha biluhu ay ka dhalan doonaan oo rasmiga ah marka waxaan oran karaa bishii caawi si sax ah kalandarku u dhalanayaan ama se waxaan dhigi karaa bishii waa soo hormaraysaa oo waxa weeye saas noqonaysaa adigu kalandar sax ah ayaa saas loo gaarayaa insha Allah waxaa jiray marka ayadana baaritaan labaad oo aan ka helay buug masri ah oo juqraafi ah wuxuu leeyahay buugaas wuxuu leeyahay hijri wuxuu la mid yahay milaadi laga jaray 621 lagu daray milaadi laga jaray 621 loo qaybshay 32 iyo bar qaacidadan waxaan ka helay buug masri ah marka wuxuu leeyahay hijri waxa bay la mid tahay milaadiga aan naqano laga jaray 621 sano lagu daray milaadiga sanadkiisa oo laga jaray 621 oo loo qaybshay 32 iyo bar marka qaacidadan fasraad bilaftigeeda u baahan tahay waxa weeye 621 macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye hijrigu wuxuu bilaabmay milaadigu markuu ahaa 621 marka waxa la leeyahay misalba maanta waxa weeye 2013 haddii aan ka jarno 621 waxaa noo soo baxaya 1392 waxaa noo soo baxaya 1392 oo macnaheedu tahay hijrigu wuxuu jiraa markii milaadi ahaan loo fiirsho 1392 sano ayuu jiraa oo milaadi ah ama waxa la dhihi karaa intaas oo guub jiraa hijrigu ama intaas oo dayrood buu jiraa baa la dhihi karaa waaya halka labadan kala goontooda waxa nooga soo baxay inta halkaana waxa nooga soo bixi doona maadaama uu kan la mid yahay 1392 loo qaybshay 32 iyo bar 32 iyo barta marka macnaheedu waa maxay doona 32 iyo bar macnaheedu waxa weeye marka la gaaro 32 sano iyo bar kastaba hal sano oo ziyaada ah hijriya ayaa soo baxaya mataalba wiil baa dhashay wiilkaas wuxuu gaaray milaad ahaan 32 iyo bar buu gaaray daadiisu waxa weeye hadda waa 32 iyo bar wiilka marka wuxuu jiraa marka hijri loo fiirsho hal sano ku ziyaadaya 33 iyo bar buu markaa jiraa 33 iyo bar buu markaa jiraa halka marka loo qaybsho 1392 marka lagu daro labada marka la isku qaybsho 42 soo baxaysa marka waxay noqonaysaa taariikhda hadda lagu jiro 1434 waa taariikhda hadda lagu jiro 1434 taariikhda hadda lagu jiro baaritaanka marka labaad oo midaan aan ku sameeyay waxaan raashay midaan ma lagu dari karaa maalin iyo bil ma lagu dari karaa oo 621 sanadku markuu yahay bishee buu bilaabmay hijrigu bishii toddobaad buu bilaabmay
meequu wuxuu ahaa 28 waayahay tan goormuu isna isbedelayaa tan waxa weeye 32 sano 32 sano 6 bilood iyo 14 beri marka waxaan dhihi karnaa 32 sano 6 bilood iyo 14 beri kasta hal sano cusub oo hijri ah ayaa soo baxay oo ziyaado ka ah oo waxa dheereeyay hijriga iyo milaadiga hijriga dheereeyay saa markay tahay qaacidadii markaan ku shaqeeyay waxay noqotay xoogaa yar oo khalad soo baxay khaladkaasna meeshu ka yimid waxay noqotay bisha July waxay ku dhamaataa 31 August waxay ku dhamaataa 31 waa laba bilood isku xiga oo ku dhamaada 31 iyo 31 Janaayo waxay ku dhamaataa 31 bisha la yiraahdo December oo ku xigta ayadana waxay ku dhamaataa 31 bisha la yiraahdo Febraayo kaligeedana waa meel cilla taagan oo Janaayo ku xigta waxay ku dhamaataa 28 ama 29 sidaas marka waxa weeye bilahaas noocaas ah waxay ku keeneen markaan qaacidada ku shaqeeyay khalad bay soo saareen khaladkaas waxa weeye bil muslimin oo ku dhamaanaysa 31 bay keeneen qaacidada waxay keentay bil muslimin oo ku dhamaata 31 ama tanoo kale waxay keenaysaa bil muslimin oo ku dhamaanaysa 27 bay keentay marka qaacidadii waxay noqotay khalad inuu jiro khaladkaasna uu ka jiro taariikhda milaadiga khaladka wuxuu ka jiraa taariikhda milaadiga waxaan isku dayay marka taariikhda milaadiga laftigeeda bal inaan sameeyo milaadi la shaqeyn kara qaacidadan la shaqeyn kara waxaan sameeyay marka milaadiga waxa ku naqanaa 365 iyo 6 saac inuu yahay rubuc waa 6 saac waxa weeye marka inaan u qaybsho si cadaalad ah 12 bilood inaan ugu qaybsho marka bishii maxay helaysaa bishii waxay heshay 30 bari iyo 10 saac iyo bar Janaayo waxa weeye 30 bari 10 saac iyo bar Febraayo 30 bari 10 saac iyo bar kulli ilaa December mid kasta waxaan ka dhigay 30 bari 10 saac iyo bar marka inta ka dhigay waxaan ku sameeyay calendar baan ku sameeyay calendarka markaan ku sameeyay baa waxaan la soo aaday taariikhdii milaadiga ahayd markaas xisaabtan markii loo fiirsho calendarkii ee milaadiga ee hijriga marka loo fiirsho xisaabtan sax buu noqday sax markuu noqday waxaan sameeyay inaan bal ku doodo aan iraahdo taariikhda milaadiga waa khaldan tahay in wax laga saxo bay u baahnaan lahayd shirkadaas waxa uu la tagay nin Ingiriis ah uu la tagay waxa ay yahay baashan milaadiga waa khaldan tahay scientific maaha waxa loo baahan lahaa in la cilmiyeeyo oo sida laga dhigo oo bilaha dhan saa loo simo baa fiican lahayd ninkii wuxuu fiirshay calendarkii aan sameeyay buu fiirshay aad buu la yaabay wuxuu yiri fikradaas hadaad damcid buu inaa faafisid hal aadin wadamada reer galbeedka waxa la aadaa wadamada carabta iyo Aasiyaankaas iyo waxaas fikradaas la aad buu yiri maxaa imaanaya wuxuu yiri calendarkan waxa weeye wuxuu kamid yahay Bible-ka waxa weeye aayad kamid ah Bible-ka weeye marka waxa suurtagal ah nin asal raaco Kirishtaan ah madaxa inuu ka jiro baa laga yaabaa marka halkaas waxa weeye khatar baad ku galaysaa hadaa la aadid wadamada reer galbeedka hadaa la aadid khatar baad galaysaa waayahay waxaan ku iray marka saa haday tahay waxa jira Janaayo Febraayo anigu aan leeyahay baa jira oo Soomaaliya waa i weydiiyay waxaan Janaayo ugu fasiray diraac good Febraayo waxa ugu fasiray 6 kor Maarso waxa ugu fasiray 7 saddexaas waxay noqonayaan diraac bay noqonayaan fushada ku xiga fushada soore samoolad
saddexaasna waxaa weeye waagu saddexaasna waagu dirir sagaaro laxadhaqo samalaho saddexaasna waxaa weeye xagaa kalahaan dambarsame baldaaq saddexaasna waxaa weeye dayr bilaha kan marka magacooda waxaan ka soo helay buug ka mid ah buugtii manhajkii Soomaaliya baan ka soo helay saasuu u qornaa waxaan dareemayaa in ay magaranaysaa lahjadaha kala duwan af Soomaaliga ah inay ku jiraan misalba koonfur waxa ugu jira baldaaq iyo kalahaan baldaaq wuxuu noqonayaa waqtiga intii miraha laga goosto miraha beeraha looda lagu sii daayo beerta loodii waxay daaqaysaa baldaaq saasa waxa loo yiri baldaaq baa saa loo yiri misalba kalahaan kan oo kale macnaheeda lama yaqaan laakiin waxay yiraahdaan recoverku kalahaan dayr musuge intaan kale waqooyi iyo gobolada dhexe iyo galbeed iyo intaas oo dhan ayay u qaybsan yihiin qof kasta Soomaaliya wuxuu ka garan karaa qayb kamid ah ayuu ka garan karaa ninka Ingiriiska waxaan ku yiri anigu waxaan leeyahay bilaha kan bilahana waxaan ku samaysanayaa sidaas aan ku samaysanayaa ka bacdina waxaan la aadayaa qaacidadeedii haddaan damcana waxaan ku faafinayaa haddaan fursad u helo adduunkan ku faafinayaa bilaha Soomaaliga waayahay marka bilahan Soomaaliga waxa weeye waa waxa la yiraahdaa thaqaafa qol kasta thaqaafad bay leedahay waxa weeye thaqaafadii Soomaaliya oo hadda sii lumaysa oo u baahan in la daba qabto ardada la baro si fiican loo barto lagu xisaabtamo weeye midda taasaan waxaan la soo aaday kalendarkayga hadda wuxuu igu habaysan yahay sidaas oo xisaabtaas ku dhisan qaacidadiina si fiican ayuu la shaqeynayaa taas waxa weeye waa qaybtii labaad oo baaritaanka hijriga inkastoo qaacidada aan ka helay buug juqraafiya buuga waxa tusay markuu arkay inaan waxaan ka sheekeynayo macallin la yiraahdo maxamuud macallin nuur oo ka ahaan jiray dugsiga Cumar Samatar Gaalkacyo ka ahaan jiray maamulka ka ahaan jiray baa wuxuu yiri qaacidada tan waxa weeye hawlaha ka sheekaysid baa qaacidadan oo ka sheekeynaysa marka qaacidada tan ka faa'iideyso khayr Allah siiyana qaybta ku xigta waxa weeye maadaama bilihii milaadiga ahaa ay marna igu faa'iideeyeen xisaabta hijriga markaan baaritaan ku sameeyay marna uu yahay xilliyadii Soomaaliga ahaa muxuu horta yahay diintu maxay ka qabtaa diintu waxay ka qabtaa waa lagu sheegay mabdiinta marka la leeyahay wasamaa'i dhaatil buruuj waxay soo galaysaa midaan ay soo galaysaa tabaarakalladii jacala fi samaa'i buruujan marka haddii la yiraahdo diraac good misaal midaan diraac good ka soo qabo diraac good waa maxay waa af Soomaali diraac good waa maxay af Soomaali waxa ku xijisaa Janaayo waa maxay waa Yurub weeye waxa jira mid la yiraahdo xaziiraan waxa weeye waa Shaami waa Sham waa Shaami waxa jira mid la yiraahdo al-Asad waxa weeye Xijaazi waxa weeye Xijaazi waxa weeye qolo walba afkeeda waxay ku leedahay wasamaa'i dhaatil buruuji buruujti magac ayay u leeyihiin adduunka dhan waxa weeye
بروجتا ولا حساب صدا والسماء إذا البروج مركز تفسير كذا وحوي الله بيتمن مجا أو قلوا والبابا أي سي أتراهذا مثال بإثيوبيا ذا نقوله وحالي هذا مصقرم بلاده مصقرم وحيقول هذا هاي تاريخ هذا لمرة تاريخ كدوان أي لاده هاي أو لوضع كوني أفرته مد كدوان بلاده هذا أنو كينيا وحي لاده هاي إندو بلي لما يتوهم مجا كابل أما إندو غاز هدي أنا أرجنو هذا موبيلada waxay ku soo direen kuwan yiraahdo Shams Farisi bay ku soo direen oo ayaguna magacooda wata marka adduunka oo dhan qolo walba luqadeeda waxay ku leedahay magaceeda ay ku leedahay anaguna waxaan ku leenahay diracgoodaas oo Soomaaliya oo hadda sii lumaysa waxa weeye waa buruujti weeye tabaarikaleedii jacala fi samaa'i buruujan iyo wa samaa'i datul buruuj marka la fasirayo waxa la soo galayaa xisaabtaas marka qolo walba sibay u xisaabaysaa مثال بإثيوبيا وكله واحد كان جن لبي توم بالوضع من صدنا يشان مع الموضوع الجورية قرارنا وكله واحد كان جن واحد لسه عسيان إيشاق واحد لسه عسيان شنايف وراي لسه عسيان قرارنا واحد كان جن أنت صدق كانوا ويس حكيان أنت صدق كوا كانوا ويس حكيان تانو نظامين بيو بانته إلى نظام دنا الصومالية بيو بانته جاية مركان صور حقله ثقافة الصومالية مركان صور حقله واحد جرى هب نوع الله حساب شو الكالندر كان الله حساب شو أيات جرى وحويه مد وحويه درك يضيح مد وحويه دفشت بالي هذا دفشت هذا عاو حمرية لما بقول يلحدن يأفر إلا لا يجارو واسعونيا صدح بقول يلحدن يشن صدح بقول يلحدن يشن ما ضافه صدح بقول يلحدن يشن وحويه هبينك قدام بيا دفشتك هالكاس محيز إسكر عسيين تاريخ الميلادي قال إسكر عسيين لكن تاريخ الميلادي قال واحد دارتهاي صدح بقول يلحدن يشن تبكلي هذا ربع عاس إسناريين كوبي كبلاوتها هبينك كوجا أي تهاي كوجا هبينك أي تهاي مثال بوحوي شمعة مثال بوحوي شمعة هبينك أي تهاي كالبرك أي تهاي بقول سديتن يا صدح أيضا وشمعة هبينك قدام بيا أو صدح بقول إحنا أيضا واحد نقول ساعة شمعة كله ماشي مركز الوسط من لها سند وحالي هذا سنة جمعات وحالي هذا سنة جمعات صابتوا محي جمعي كون نقطة أو بلاوتي جمعي واحد نقطة كلابر بقول لي سديتني يستح نقطة جمعي واحد نقطة رماتكي سنة بقول لي إحنا عشان سنة جمعات ساعة كون نقطة سنة كوحي روح نقولها سنة سبتي كو روح نقولها سبتي بقول لي سديتني يستح روح نقولها سبتي سنة بقول لي إحنا عشان روح نقولها سبتي haddana kan axadda sidoo kale kow wuxuu noqonayaa axad saasaa markaas loo xisaabshaa sana axada sana sabtiyaad marka ilmaha loo gutiranayo waxa la yiraahdaa wiilkaan wuxuu dhashay sana axadaad buu dhashay da'diisa la qiyaasaya marka waxa leeyahay ninkaanu haddii axad uu dhashay sideed ma jiro waa ka weyn yahay axad ka axad baa leeyahay axad buu dhashay oo sanadkii koowaad ahaa axad waa sideed axad ma jiro أحد كحوته وعشرين طبعا أحد كحوته واللواتن يلبو أحد كحوته واللواتن يسجل وحوي ترى أساس وتحن أو لو قدر يتضبط أيوه متسواق بصنيعه مركز واحد اللي هاي نكاس وحوي تراه أنت صنوت تراه ولا أنت حيوان بتراه مركز سؤال مركز هالكان وحيا له سؤال هالكان مركز وحيا له حساب تان يمدان هالقلبات يا صحن تمام كجوابي كرنا تاس waxaan ka sameeyay cilmi baaris baan ku sameeyay maadaama qalab aan haysan waxaan sameeyay qolkaygii qolkayga saas oo kala ah baa waxaan sameeyay tirniga waxaan ka duleeyay musbaar baa shaqo halka kaga siiyay musbaarkaas markii iftiinka qorraxdu soo galo iftiinka qorraxdu markay soo gasho halkaas wuxuu cuskanayaa
دربي أيوه كعسكر يا ماشى مركز أنا صار سمعنا واحد هيد سيدي يلا بعتنكي بيشي نوفمبر سياشن إلى حين كان هدان بلاريو سيدانا كلون غنيا واحد هيد سيدي بيشي كوي تمناد سياشن إلى حين سياسي هيد ما أنتاس سيدي يلا بعتنكا ما أنتي كحكتي أنت سوق جفور كلا بحي افتينكي وواضرك أنت سوق جفور كلا بحي waxaan sameeyay marka halkaana waxa uu qaybshay inta uu la baxay gafuurka waa 24 saac 24 saac waxa uu qaybshay 4 meelood ana u dan leh rubuucyada sanadka soo gala anigoo u dan leh marka midda koowaad waxaan ka dhigay baan ka dhigay tan labaad waxaan ka dhigay tan saddexaad waxaan ka dhigay ja taas waxaan ka dhigay ha marka halkaan maxay noqotay 96 xariiqaasi joogtay halkaasi joogtay baabay joogtay sanadkii ku xigay 97 sax bay noqotay xariiqaasi u dhawaaday xariiqaasu dush ka fulay oo taada sanadkii 98 xariiqaas jaada ayuu fulay sanadkii 99kii ka u dambeeyay fulay marka 2000 Febraayo waxay noqotay 29kii wuxuu faa'iideeyay in iftiinkii uu soo laabto awal waxa weeye 9kii waxay gali lahayd 8 waxa ka soo ceshay bishii Febraayo laga dhigay sanadkii 2029 laga dhigay ayaa soo ceshay halkaas uu ku soo laabtay 2001 halkaas uu soo fariistay 2002 halkaas soo fariistay 2003 2004 2005 2006 2007 inta markuu soconayay waxaa samaysmay 2008 meeshu halkaan soo fariisan lahaa halkaan soo fariistay meel aan xarf la haysan ayuu soo fariistay 2008 halkaan soo fariistay 2009kii wuxuu soo fariistay si sax ah buu la soo fariistay marka 2008 halkaan laga rabay 2009 halkaan laga rabay halka waxa ay soo baxday taariikhda miilaadiga laftigeedu in khalad ku jiro midda hijriga waxaan lahaa dafidka waxay ahayd 110 bay ahayd 110kii maadaama ay tahay 360 maadaama ay tahay ma haysto rubuc soo cesho ma haysto ayadu waa iska tagtay meelahaas hadda sii maraysa aad bi u fogaatay 110 halka marka waxaan ka ogaaday tiradii dafidka ahayd inay khaldan tahay oo sanadkii aysan shaqo ku lahayn sanadkii 4 xilli inaan laga faa'iideysan karin ayaa halkaan ka ogaanayna laakiin midaan miilaadiga walow uu khalad ku jiro ayadaa ka saxsan halkaan markaan marayay waxaan galay website waxaan ka helay in miilaadiga uu khaldan yahay awal waxaan u qabay in magaranaysaa miilaadigu uu sax ku yahay baan u qabay laakiin website-yadii baa waxay qirayaan in taariikhda miilaadiga laftigeedu ay khaldan tahay خير الله سيو الشيخ لي هذا الشيخ مصطفى هارون أيها وحو أخرنا محاضرة معنى هذا أي أهيد ما بنانتهاي عيدها كريستانكا ما بنانتهاي أيو كشيكين انتو صن كشيكين وحو كسو شيكية مركو هوري في سكلاهان وحان سيء شغيان بو كسو شيكية وحو صو شيكي سوى سو آخرستي بواق يومارتي انترنت ترى بدن سو آخرستي وحو إيش شيء المحاضرة دي وحن كفاية بقول لبعتين يسديدي السنة هل مالن تاريخ الميلادي أنو خلدمه هل مالن أنو خلدمه مركز خلط كي أنا أركي يوم محاضرة دي أو يمر خاطي فرتي هل كاس أيام كون عي محاضرة مركز معناه هذا مركز وحو كسب جبجبي إذا هاس كريستان كا حب نيويورك إيوه نتالاها inay yihiin qowl zuur yaani magaranaysa qofkii yiraahdo waaid yaani dambi weyn oo leeyahay qowl zuur oo kabaarta kamid ah inuu ku dhacayo midda markaan soo qaato website-kii markaan sii dhaxgalay wuxuu ka sheekeynayaa in
taariikhdan waxa la yiraahdaa Gregory baa la yiraahdaa taariikhdan waxa la yiraahdaa Gregory maxaa lagu baxshay awal waxa la dhihi jiray Julian calendar baa la oran jiray marka taariikhdu markay ahayd 1582 markay ahayd bishii tobnaad saddexdeedii oo jimco ah baa u dambeysay taariikhdii Julian Caesar u dambeysay Gregorian wuxuu yiri taariikhdii waa khaldantay waxayna maraysaa khaladkeedu 11 bari 11 bari oo khaladka inaan ka saarno baa loo baahan yahay si loo khaladkaas looga saaro 11 bari wuxuu yiri bari oo ay bishu tahay 4 maanta waa 3 waa jimce waa khalday halaada halkan waxa weeye khamiis halkan waxay ahayd khamiis bay ahayd wuxuu yiri maanta oo ay tahay 1582 bishii Oktoobar 3 oo khamiis ah baa ugu dambaysa taariikhda la yiraahdo Julian Caesar taariikhda soo socotay waqtigaas ugu dambeeya maadaama uu khalad galay marka waxaan bilaabaynaa 12 bari baan ka tuuraynaa waxaan ka dhigaynaa 1582 bishii tobnaad 12 bari baa laga tuuray 15 baan ka dhigaynaa jimcihii markaa bilaabantay marka taariikhdan la yiraahdo Gregorian la yiraahdo waxay soo bilaabatay 1582 bishii tobnaad 15keedii maalintii ka horeysana maxay ahayd 1582 bishii tobnaad saddexdeedii bay ahayd 11 bari bisa u boodin marka taariikhdan marka inay tahay 365 oo soo sameeyay Masar baa soo sameysay baa leeyahay Masar waxa ka faa'iideysay Greegiisaas soo wareegtay Yurub bay saa ku soo gaadhay marka taariikhdan waxa iska lahaa Masar baa iska lahayd waxay xisaabsan jirtay Nabi Ciise ka hor 2000 iyo 4000 baan lahaa 4600 sano ka hor Nabi Ciise dhalashada Nabi Ciise ayay magaranaysaa bay soo wadeen Masar marka waxa ka qaatay Greeg baa ka qaatay reer galbeedkii baa saa uga qaatay waxayna markii dambe ku saleeyeen kitaabkooda isheeg Bible-ka ayay ku saleeyeen oo habda ay maartay marna wax ku daraan marna wax ka jiraan kaasay ku saleeyeen taariikhda marka maadaama midaanu Julian uu saa ahaa Gregorian midaan wax kama u bedelin maadaama uu waxba ka bedelin wali khaladkii waa socdaa marka waxay ku tashadeen in ay boqolkii sanaba ay maalin ka tuuran mitalba 1700 markay ahayd Febraayo waxay noqon lahayd 29 Febraayo waxay noqon lahayd 29 bay noqon lahayd waxay ka dhigeen 28 si ay maalinka khaladka u saaraan mar labaad markii la soo gaaray 1800 Febraayo waxay ka tuureen sidoo kale oo 29 noqon lahayd maalin bay ka tuureen 28 bay ka dhigeen mar saddexaad 1900 oo sidaan oo kale ah saas oo kale hadana maalin ay uga tuureen marka waa boqolkii sanaba mar bay ka tuurayeen labadii kun markii la soo gaaray waxba kama ay tuurin website marka wuxuu sii sheegayaa 2100 waa sii qoran yahay waa calendar dheer weeye 2100 in laga tuuri doono Febraayo noqon doonta 29 ahaan lahayd maalin baa laga tuuray saas waxay ku noqotay 28 bay saa ku noqonaysaa marka 128 sano mar hadii saa u noqonayso teeni marka inaan ku saleyno teeni Soomaaliga ahayd ayaa loo baahan yahay diracgoodkii iyo lix korkii iyo todobkii inaan ku saleyno loo baahan yahay insha Allah qaybta dambe waa noo soconayaa qaybta dambe waxaan ku soo sheegi doonaa insha Allah midda Soomaaliga diracgood iyo lix kor iyo xisaabahan saa isu dhex gashay waxaan rabaa inaan sameeyo haddii Rabbi idmo calendar ka horumarsan midkan milaadiga ah oo ay reer galbeedku leeyihiin oo Soomaaliya laakiin waxaan u baahanahay Soomaali igu raacda dawlad igu raacda ayaan u baahanahay insha Allah rajaa ayaan ka qabaa intaba inaan helo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد
للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد.